meeday maayda meeday hee xaaji maanta warkii adduunka waan ku hayaaye kursi soo qaado الله خير كادك horteeda soo fadhiiso ورسي war aan ku siiyo هيه سي wata maamulkii doorsho geli rabo هاي وحير بكدماني waxaan rabaa inaan musharax noqdo وقدوميها مقالة may كان قبلك may haddana هذا حجارة محوق هيها وطلع شباية waxaan rabaa inaan madaxweyne noqdo oo xilkaana isu sharaxo هذا هلك أيقهوب waa saan kuu sheegay musharax madaxweynenimo baan rabaa أو بس شرح سامية ha أو ياكو دورنا يا أديك ورهن عيبين ka baxdo anoo madaxweyne ah ma ku tusaa بل الله كله قرب قلو aamiin adigana waxaan kaa rabaa inaad garabkayga noqoto oo si ay garab taagnaato يقول هلا أنا دحدة كل حرنا يا wakukaa walle maalintan oori kaa dhigtay uguma khasaarin أنت نولد ما أنت تقول أنا كنت وهني على تاي miyaad waalan tahay maalin dhowna adaa lagu dhahayo marwadii madaxweynahay kaalay هيا يقعد هذا مصيفر حياة idhagayso sidaasina isku ognaha maanta laga bilaabana musharaxaas ana هيا واي أنا هدر أنت كلنا وذا شيء أنا مشرحت هاي anna reerka odayaashiisa meelaha ka baadhaya iyo caqilkii sidaasina isku ognaha ساسا نسكوبنا مشرح kaale baabka ka soo xidh hadda baan howlgelayaaye إنا مري ماذا قرما قتلك إنك بدلسة waxaan anaa bedelayaa waxaana ku xidhaya kan rabida ku shaqay maarta mana saa loo furo mana saa loo xidho هيا ماذا صارنا بنقو waaya marwada madaxweynahay تب ليدي هما مايدا ما قاعد هو مروده مدحوينها ما أنت لقى بالعاب warsikariya haye maxaad noogu yeedhay anaa iskuukin yeedhay maanta waa sax anaana iskuukin yeedhay waa yahay arrin weynna maaha maaha waa tan dowladdiina sii dhacayso waanu garanay waxaana rabaa wax maanta dadka iyo dalka badbaadiya allah wax badbaadiye allah wax badbaadiye waa yahay intaa markii laga yimaado aan hadalka nuxurkiisa u soo dhaadhaco u soo dhaadhacno waxaan isu sharaxay oo u taaganahay musharax madaxweyne maasha allah waanu garanay oo weliba u taagan inuu dalkiisa iyo dadkiisaba wax u qabto horta waa arrin wanaagsan waa sax musharaxnimadaadana waan soo dhawaynaynaa aad iyo aad halkaasi waa adag tahay si fududna laguma helo waa runtii oo ciyaar laguma helo si kastaba ha ahaatee ninkii calaf ku leh alla og taasaan been ahayn marka intaa laga yimaado waanu ku taageernay waanu ku dhisaynaa maasha allah adeer aad baa umahadsantihiin waana waxaan idinku imi adaa mudan musharax maanta laga bilaabana waxaad tahay musharax waxaan ahay musharax wixii annaga naloo ka baahdo waa diyaar wixii adiga lagaga baahdana waa diyaar wax kasta oo dhankayga looga baahdo waayahay musharax arrintu saas inoo ahaanaysaa waanu ku garab taagannahay waayahay idinkuna aad baa umahadsantihiin wada shaqayn wacan waayahay musharax waa yahay musharax annagana noo dir shaahshaahiyadii yaa caaqil musharax shaahi maanta iyo fadhiga noo dir madurbe waayahay adeer caaqilkaan u dira waa yahay musharax waad soo baxaysaa waayahay waa soo baxaya shala aad baa umahadsantahay hadda laga bilaabo madaxweynaha ka musharax madaxweynaan ahaa madaxweyne waaya aad baa umahadsantihiin haye musharaxay haye muddadii halaagan cagta saaran laakiin guul baa ka dambaysa insha allah waana soo baxaya كورنا وياش مس أركتين haa weji fiicanna waa kala kulma هيا waad soo baxaysaana way dhaheen مدربة odayaasha mid taqaan xagga saadaalinta u fadhida عندها كم مقطعين تسوي بحسس ما أركتدي maxay noo xigaan waxay noo xigeen nushaacinno musharaxnimadaada sax weeye ها tali maxaynu samaynaa taliye maxaad ku talisaa horta dadka miidiyaha ku wada jiraan yar iyo weyn waaya khadkaasaa lagu yaacinayaa musharaxnimadaada walle maanta talisay ii wad dhowr miidiyaha ka qayliyana muuqaaladaada iyo sawiraantaada loo diraya shaahodana waa loo dirayaa dee walle iyo bille taladaada tala kala saari maayo talo kaloo dhaanta lama hayo dee caawan asli foota tegaya sawiraan iyo muuqaalo holaca baan iska soo duubaya anna ii soo dir meel kasta waan dhigayaa iyo gulubyadan ku jira xiteen naag nool baa tahay baan ku uri oo laakiin sawiraanta maxaa kusoo geli dee shaar iyo surwaal mise macuustan ka dhigaaba may hay ceebayn maxaa xidhaa waayahay bahal suudha isku taag suur isku sii taag baa leedahay haa waaya anaad igu ogtahay suurkaasa xidhanaya waayahay haddana or footada ka gaadh بسم الله أولا إلهي بقى مهلة مركي حاجة هلكم وحكا شاعنايا إن أنا هاي مشرح أتاجن حلك مدحوينها وحنا دلك كسمة البحين دونا إن شاء الله أبارها أولادها مرنك السياسة حيابها صد إن شاء الله وحنا بالشدة الصومالية كعصنايا إن يتاجران ما أنت لقب بلاونا وحنا هاي مشرح كورن ده مساق الشيء ها وانصوق لي ii soo dir balaanayaga وانكو صدركاك ما أنت لقب بلاونا وحنا oo maxay ka dhexin oo hudheerka ah
وما العقل سوق كوكا أنا وهنا وحقوب يقرع عنه قل النهاية qushi laakiinse musharax waad u egtaa هذا من الكسر ديك ka seexa shaqadeedii baa la gaadhay كرتبان muuqaalada iyo sawiraantaas oo Afrika iyo Asia laga daawaday baan ku tusayaa وايه بل أنا وان وريرية بس إحنا ياي wareerkow kuma ahe oraynaha yar casayso الوايه naaya xariimooyin muuqaalada sawiraantaas soo dhigay ii share gareeya oo meel walba ii gaarsiiya leelaha ii soo saar inta maxaa xiga madaxweyne يا لي وذي محاحقة aragtay meelaha dadku ku badan yihiin ها سيدا مهرادها kuwaas ay musharaxiintu tagaan تيتا مركا meherada shaaha ninka tag taasina wali musharaxiintu tagin هاي واجانسي dadka fariistaad u tagaysaa وايه khudbad laga yaabay oo dhinac kasta taabanaysa na waa soo jeedinaysa وواحد leedahay iska dhaadhici haa afkaaga yuusan ku ciili igu hallee baan ku ori waliba xilliga ugu shacabka badan tahay baan tagayaa haddayba igu dad badan tahay baan u malaynayaa waaye haddaan tagayaa kaal baa ku soo xidh walla wuu xiiqay siduu marba meel igu sii ordayay qushi laakiinse wuu soo baxaya inuu kana muxuu ahaa inuu musharax maalintii khadka soo dhigay malaha inuu weyna wareerinsan nagu imaanayeen السلام عليكم وعليكم السلام musharax هذا رسيتين ما شاء الله maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan la kulmo dhalinyarada dalka oo ku mahadsantaa musharax booqashadaada wadankan xaaladiisa waan ka warqabaa sababtoo ah waxaan ahay nin ku dhashay kuna dhalay waa sax inkii la doonayay baad waxaan rabaa inaan idinka shaqo abuur idiin sameeyo aad tahriibka iyo qabyaaladda kaga baxdaan musharax maalin kasta taa waa nala dhaxaa oo waanu ka daalataa adeer wixii hore iska quba maanta musharaxii dhabtaydi ku shaqayn lahaa bayd hor fadhiya bal kuwii hore inaad dhaantid ayaan rajaynaynaa waxaan rabaa inaad i taageertaan anigu waxaan ahay madaxweynaha dhalinyarada xitaa guurkan dhahaya hablaha jabiya waayahay madaxweyne waa ku taageeraynaa haddeena waxqabadka ugu horreeya aan idiin qabanayo waxa weeye jaha lacagtiisa idinka bixinaya maasha allah madaxweyne waa dooran tahay saasaynu isku ognahay iyo taageerid insha allah waa soo baxaysaa waa guulaysanaysaa insha allah reergacayo guul iyo gobonimo السلام عليكم وعليكم السلام ما شاء الله dhalinyaradu alxamdulillah ma sha Allah soo dhawo musharax madaxweyne warkaaga waa haynaa ما شاء الله nabad baa sheeha ku cabisaan alxamdulillah ilaahay ka sokow nabadda adiga dhaliyay waagi hore sheeh biga salaabi jiray maantana sheeh cadeys cabisaan waxasna nabadaas kale alxamdulillah dah musharax madaxweyne waa taa xilki ka dhamaaday adna maxaa noo wadaa horta waxaan idigu imi musharax madaxweyne baan ahay ma mar kale oo shantii hore waxa ma aan qabane maxaan kugu dooranaa shantii hore way igu yaraatay ee anaa nafteeda geliyay haye shanta soo socota reerkiga u adeegaya runta fiican shanta ku sii xigtana shanta ku xigtana idinkaadii adeegaya oo musharax yaa nool markaa wixii nool baa loo adeegaya ee taageera maanta waa idin baahnaay way musharax ku taageeraynaa inaan adiga ahay meesha uma qalmo saas adiga rabaa dhalinyaradiina waxyaabo fara badan baan u qabanaya waayahay musharax waad soo baxaysaa sheeh lacagtiisana anaa bixinaya mee iska daa kii kaa horeeyay baa diray way haader saasaan isku ognahay nabadana ilaaliya aad baad noo mahadsantihiin dhalinyaro mid kasta inta ku yimaado been kugu daldalayaa ilaahay kama baqayaan miyaa ummad bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah musharax xaabsade ahna madaxweynihii hore ee maamulka haddeerna waxaan u sharaxanahay in aad dib ugu laabto madaxnimadii shacabka waxaan u sheegayaa waxyaabihii hore aan dayacay oo aan ka seexday inaad dib u hagaajinayo horaa waxaa loo dhahay qabyo ninkeeda dhammaystira shantii hore sano anigaa nafteeda daryeelayay oo isoo kabayey shanta sano ee soo socota insha allah bulshada waxaan u qabanaya shacabkayga jecel oo habeen kasta igu seexda oon ogahay inay igu seexdaan waxaan ka codsanayaa shanta sano ee soo socota kaliya iska shan sano inay igu daraan wabilaahi tawfiiq maanta laga bilaabo waxaan ahay musharax mudane madaxweyne hee marwada madaxweynahay xaggay wax marayaan meeshii ugu fiicnayd bay taallaa waan gartay horta waa aniga odayaashii la kulmay waan gartay waa anigii ishaaciyey inaan madaxweyne oo sharaxanahay taasna waan gartay shacabkiina waa hortegey oo waana saragnaa maxaad kala kulantay shacabka horta way rabaan iyagu sababtoo ah meherad kasta markaan sa u galo saasa lagu soo boodaya allah waa madaxweynihii dhaartoon baa kugu dhiman waad soo baxaysaa haye waa sidaynu rabnay waa sidaynu rabnay anigu horta meel kasta waan kaa tuuray dahabkii yaraana waa anigu kuu gaday haayo waa anigii shidaalka iyo waxaa ka dhigtay ma garatay waan gartaa is adkee oo musharaxiinta kale farta ay qaadaan la qaad anaad igu og tahay taas markaad meelaha joogtid hadalka yaree haddaad hadlaysidna hadalkana ka adkee sug waa lay soo wacaya ka qabo halo soo musharaxi madaxweyne ma aha haadeer musharax waa soo baxaysaa dhaarta un baa kuu dhiman aad baa umahadsantaa adeer yaa weeye manaag baa may waa mid ka mid a taageerayaasha oo leh waad soo baxaysaa dhaartoon baa ku dhiman war waa soo baxaysa anaa taa kaa og
maalin dhow kuwii guddiga doorashada war soo saaraya oo maxay dhahayaan markaa waxay sheegi doonaan shuruudda musharaxa laga rabo ha hadlaan hadday doonaan adiga shuruudaa ku celin kara may wax kaa dhiman ma jiraan mid igama dhinna say kaaga dhiman yihiin dee kuwaasina ka warsugaynaa insha allah waayahay halkaasay taallaa hadeer biyihii ma ii shubteen qubaysteen haayo kaale qadayna waadna dhuubatay inta musharaxa noqotay dee wuxuu meeshay gasho haddaada ka dabagelin la heli maayo bal ina mari haddaba horta kaalay hee heede maxaa reeraha ka eegi waxaan ku idhi guriga karigee baa joogay ii sheeg waxaad ii sheegaysa waxaan ku idhi hee maxaana tiri dee waan soo baxayaa anigu waad soo baxaysaa yaa shaki ka qaba ma intasaa reeraha ka eegaysa haa waan soo baxayaa ina mari inakeen seebaadan u soo baxin anaa garabkaaga ahay ina mari bismillaah anigoo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka durdur state waxaan maanta halkan ka shaacin doonaa shuruudaha laga rabo musharaxa madaxweynaha shuruudahaas waxaa ka mid a kow waa inuu yahay nin ka weyn 32 sano laba waa inuu haysto shahaado jaamacadeed heerka labaad waliba saddex waxaa laga rabaa lacag qadarkeedu yahay 32,000 oo dollar musharaxiinta waxaa laga rabaa inay hore isku diiwaangeliyaan ugu dambeyn muddo 3 casho ay haystaan wabillahi tawfiiq waxaa laga rabaa inuu haysto shahaado jaamacadeed waliba heerkeeda labaad saddex waa inuu haysto ama waxaa laga rabaa lacag diiwaangelin oo qadarkeedu yahay 32,000 oo dollar war ninku muxuu yiri 32,000 ah gudid ma waxay doontaa iska dhaasay xagee laga keenay 32,000 waxay dhahaan waa lagu khasban yahay marka 32,000 xagee ka keenay ma dhagaxaan baa lacag u bedeli ma u bedeli maayo laakiin waynu xal raadinaa qolada gurbaha maxay la hadli weyday iyaga maalin dhaweed baan la hadlaa maxay ku dhaheen waxay dhaheen anaka hadeer baa nagu tashan oo goorma wax ku tarin haddayna maanta wax ku tarin garan maayo wallah war meesha dadku ma haysatid dad la'aanta ku dhaantaa kuwa ilaahay baa iga beeraya bal maanta tali maxaynu sameynaa bangiyada ma tagnaayo lacag ma ka daysanaa marka bangiga lacag ku siinaya yab wala xaaladu waa jiq meel yar wax ma ku ogtaa adigu wallahi iga taana waxba kaala hadhin waxaan hayay adaan farta ka saar waxana waa caqabad yar waynu ka gudbi karnaa marka waa yahay sidee loo gudbi karaa aqri baan ku hayaa xabiib muxuu yahay waa loo baahan yahay gurigan ma aragta ha waa maxay wax sheegdee waynu gadaynaa miyaa war ku soo celi waxaa tidhi bal waa yahay adigu xalkeen xal aan kaa ahayn anigu ma hayo xal kale ma hayo war mahatima guurtaa baa la iska iibiyaa danta hadday kugu khasabta ka waran dantaada waa 20 sanaad ay khilaafin maanta ay khilaafin maanta inaan ku khilaafo waa igu waajib xabiibitay waxayna hortaagan waa hal caqabad haye waxaanoo xalin karanaa waa inaga gurigan gadnaa ka u dhahdee wad sheekada guriga ma gadnaa ma soo baxnay kan mid ka sii weyn baynu gadanaynaa bal waayahay gadday xaggaynu aadaynaa markaa dee inta mid kiraa baan sii gelaynaa bal waayahay haddaynu guriga gadno aan soo bixi weyna ka war waan soo baxaynaa xabiibi sababtoo ah musharaxiinta ninka ugu cadcada la sitaan ahayba miyayna ka daysto hoy taladaas ha dhow weynoo soo uri doontaa ma inoo soo uri mayso taa ha ka biqin bal waaya iskagad raallina kama yihiin waayahay marwo haddaan dilaaladii wacaya maantaba kala tuurayaaba bal si khayr lay noqonaysaa waayahay ujeedo ku calbatan iib guri la kala iibsaday iibiye Sakariya Cabdiqaadir iibsada Suldaan intaad kaga baxsaa gurigaada adigu 20 casho ay qabo insha Allah inta guri kale helayo 20 casho way badan tahay 25 casho bal waayahay adeer wadayaal waxaan ku sugannahay goobta musharaxiintu isku diiwaangelinayaan ee maamulka Durdur State waxaa hadda soo gaadhay qaar ka mid ah musharaxiinta si ay isku diiwaangeliyaan Sakariya Cabdiqaadir wuxuu ka mid ahaa musharaxiintii maanta u tartamayay xilka madaxweynenimo oo maanta xereeyay sifigiisa maxaa rajaynaysaa insha Allah adeer khayr baan rajaynayaa maanta waa isdiiwaan geliyay shuruudihii oo dhan baa soo buuxiyay insha Allah waa guulaysanaa insha Allah adeer maxaa uga jeedaa waa guulaysanaa insha Allah waa guulaysanaa dan nin subaan ahay adeer gacaliye ninka ugu cadcadna waan ahay insha Allah waddanku isbedel buu u baahan yahay waa ku salaamaya adeer waxa dadku waxay sheegayaan sharax madaxweyne Cabdigeer soo dhawow ma dhawaad
maanta isdiiwaan gelisay maxaa rajaynaysaa wallaahi guul baan rajeeyaa maanta waxaa isu diiwaangeliyey maamulka durdur state dee waxaan leeyahay dadka kale way iska ordayaan oo dalka waxba tari maayaan anigu daruuraha cirkaan rabaa inaan gaadhsiiyo maamulka durdur state insha allah tacaala waana guulaysanaynaa waana gudbay dee araajidiina waa liiga guddoomay araajidii waxta waa xareeyey dadku waxay u baahan yihiin xilli kasta u shaqeeya nin xilli kasta u shaqeynaya ma taha xilli kasta waa shaqeynaya xataa xilliga suxuurta waa shaqeynaya xilli aan shaqeynayn musharax xabsade maanta isdiiwaan gelisay maxaa rajaynaysaa insha allah waxaan rajaynayaa inaan soo bixi doono rajadeeduna aad bay u fiican tahay dadku wuxuu u baahan yahay qof u shaqeeya xal iyo habeen oo dadka masaakiinta caawiya maxaad noqon doontaa adigu waxqabadkayga bulshadana waa garanaysaa intii daawatayna waa garanaysaa qolada saxaafaddana waxaan ka codsanay inay taageeraan saxaafaddu wax ma taageerto shaqeeyaan waqtigaan jirin waqtigu aad buu yaryahay qolada saxaafadda mar baan si gaara wada kulmi doonaa insha allah wada kulmasaa insha allah waqti gaara waxaanu ku sugannahay hoolka sida tooska ay uga socoto diiwaangelinta musharaxiinta oo ay u tartamaysaa ajagada madaxweynenimo ee maamulka durdur state waxaa halkan la jooga guddidii diiwaangelinta hawshii sabadeedii ku socotaa hawshu si fiican bay u socotaa welina waan ku jirnaa filash baan qabanaynaa ilaa hadda inta musharax isdiiwaangeliyey adeerow gacaliyo horta hawl baan haynaa hawsheeda inaan laga soo dhexgelina ma doonayno marka dib baa ka ogaan doontaan xilli ma shaqaynaysaa adeer shaqaan wadnaa horta noo kaadiya natiijada xilli ma shaqaynaysaa qolihiina saxaafaddu askari dawdayaal hadda waxaa soo gabagabowday diiwaangelinta musharaxiinta maamulka durdur state waxaa hayla hadda isdiiwaangeliyay musharaxiinta ugu badnayd taasoo u tartamaysa xilka madaxweynenimo waxaan sugnaaba waa maalinta beri oo lagu dhawaaqi doono musharaxiinta soo baxday iyo kuwa hadhay bal bulshadu iyay taageersan yihiin markii food loo dhaqaaqo codkeenu miyuu dhaqoobi markii food loo dhaqaaqo codkeenu miyuu dhaqoobi bismillaah anigoo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka durdur state waxaan maanta halkan ka shaacin doonaa musharaxiintii buuxiyey shuruudaha madaxweynaha musharaxiintaasoo kale ah 1 xaabsade 2 ilka case intaa kadib waxaa soo baxay 2 musharax oo kale ah musharax xaabsade iyo musharax ilka case musharaxiintii kale waxa aysan buuxin shuruudihii laga rabay ugu dambeyn waxaa xilka musharaxnimada ku soo baxay 2 musharax ee kale ah musharax xaabsade iyo musharax ilka case waa inoo iyo hoolka doorashada وبالله توفيق shuruudaha waan buuxinaya miyana ka oran oo ima celin karaan tii igu cuslayd baa hadda hadheedeer taayada marnaan soo baxay oo dhaarta un bay dhiman sug shiiqo dhaar lahayno yaa heelki tagaba micna laga doortay way iska caday waxaygu banaankaasi taala ee banaanka kugu taala sababtoo ah xildhibaanada iyo dhan xalan codkooda midmir uga gata saa uga gadata kulli inta lacag afka ka wada galiyay baan ku codkana hala weecanina adaan kugu gowracanahay bay dhaheen oo say adiga kaaga qaatay soo musharax kalena iga qaadan maayaan waxa bad taqaanid ka cuno ka coday baa lahaa taasi soo adiga kugu ma dhici karto say ku dhacda aniga xalaal cunba wada qortay xalaal cunka wala ka dhaxarki doonta xildhibaanada aan aqoon xaggaad adigu tushuushiga furan oo niyadda iga jabin ka jabin maaye sug wala soo wacay السلام عليكم هذا هذا وقولدي guriga ka gaday waqtiga kaas dhamaanay mid ogeyn ha waa ogahay laakiin wali guri ma helin taada guriga ay soo dhaafo ciyaala bacdiga yaalay hay waa dadaalayna insha Allah noo dul qaado adigu yaa weeye waa nimankan guriga ka gaday maxay leeyihiin waqtigeedii qabtay 3 cisho ka dhiman soo guri ma raadis maxay tahay soo taa hawsha nagu furan tahay oran guri raadina anagu ana ma raadin ciyaalka cidaan uga tagaanaan hayn ciyaal lahayna guri raadiya alaata banaanka la dhigin hadda doorashadu waa berri baa tiri ha waa berri Allah kuu guuleeyo wax noo dhiman garan mayno insha Allah bal adigu duceeyo salaatul leelka u kacbal war duceeyo ma harsanay Allah kula garab galo ogeysiis waxa la ogeysiinayaa dhammaan bulshooyinka ku noqon magaalada inay caawa laga bilaabo 12 habeenimo ilaa berri 6 marxanimo inay magaaladu bando tahay lana xayiray isku socodka gaadiidka maadaama waddanku gelayo xaalad doorasho fadlan lama amniga la shaqeeyo hal la joojiyo dhaqaaqa faraha badan wuxuu waqtigu isguraba saaka waa doorashadii ha saaka waa doorashadii sugaa si quraacad adoo safradaysan tagi oo quraac bay dhawaysa saaka kala dhadhama jireen warunta wallahi saaka kala dhadhan kugu taga siida baaldega oo jirka ama sii tunta kulli aanu madaxweynaha la soo noqonayaa hadaan soo wada baxaynaa madaxweyne shirkaamada iyo dirbaanada iyo mashxaradaha hadaan u baxaynaa saasaan ka rabaa haddana waan sii baxayaa soo duceeya ducadu kala joogsi ma leh albaabkana soo xidha Allah ku guuleeyo indha soo baxaya uu leeyahay dalkiyo dadka dugsi u tahay dawladnimo dalkiyo dadka dugsi u tahay dawladnimo difaac midnimada u tahay dawladnimo doorashadu way bilaabatay aan daawado bismillaah anigoo ah gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka durdur state waxaan maanta qaban doonaa doorashadii madaxweynaha waxaan xildhibaanada sharafta leh ka codsanayaa mudanayaal iyo marweyn inaad buuqa iyo sawaxanka inaga yareysaan
intaa kadib waxaynu dhegaysan doonaa khudbadaha ay noo soo jeedin doonaan musharaxiintaas oo kale ah musharax ilka case iyo musharax xaabsade haddana waxaan u yeedhayaa musharax xaabsade si uu inoogu soo gudbiyo khudbadiisa دواد سمالي دوتاي درجة عيدة ما دوتاي دريال ماتي دوتاي بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو وعبد الساق أحمد يوسف وكما قعنين حافظة وحانا هاي مشرح اتلاقان حلك مدحتنمو مامولكا دردر ستيت هاكا وحان كشيغيا وحقابتك aan qaban doono hadii aan ku guuleysto xilka madaxtinimada waxqabadkii waxa kow ka ah inaan sameyn doono biyo xiran aad iyo aad u weyn aan wiil loo arag waxaan kala rabaa inaan sameeyo dhisme wado weyn oo isku xidha tuulooyinka tuulada la yiraahdo Jeega Weyne iyo tuulada la yiraahdo Dhabar Jeex waxqabadkayga saddexaad waxaan ka dhigi doonaa inaan waxbarashada ka dhigi doono free mudana limarooyin waxa idiga codsanayaa in codkiina igu helisaan aad baan noo mahadsantiin waa mahadsan yahay musharax xaabsade iminkana waxaan u yeedhayaa musharax ilka case دريال ماتي دوتاي دولتي مجير دولتي مجور داعتي موجودي baarlamaanka dhammaan waan salaamay anoo magacaygu yahay musharax ilka case haddii aad ii doorataan xilka madaxtinimo ee maamulka durdur state waxqabadkayga koowaad waxaa weeye inaan dhisi doono wadooyinka burbursan waxqabadkayga labaadna waxaa weeye inaan soo kordhin doono caafimaad tayo leh caafimaadkana aan ka dhigi doono bilaash mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina igu garab siisaan isbeddelkana doorataan labada musharax ba aad iyo aad u mahadsan yihiin iminkana waxay noo bilaaban doontaa doorashadii intay codayntu socoto waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh inay borotokoolka ilaaliyaan xildhibaankii magaciisa loo yeedhaana kaliya uu soo kaco دريال ماتي دوتاي دولتي مجير دولتي مجور haddeerna waxay noo bilaabmaysaa codayntii labada xildhibaan ee ugu horreeyaan u yeedhaya xildhibaan Barkhad Nuuriye iyo xildhibaan Maxamed Karaamo xildhibaanadu waa inay telefoonadooda ay miiska saaraan أنت دولة باناي تنسى عصام باناي يسودو باناي xildhibaan karaamo waa codeeyey xildhibaan barkhad nuuriye waa codeeyey xildhibaan Muraad xildhibaan Sheekay soo kaceen xildhibaan muraad waa codeeyey xildhibaan sheekeeye waa codeeyey xildhibaanad sawda waa codaysay haddana waxaan u gudbi doonaa tirinta codadka xildhibaanada ka soo qayb galay doorashadu waxay dhammaayeen 12 kuna way wada codeeyeen waxaan bilaabaynaa tirinta codadka alla ilaahu guusha sii xaabsade 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 ilka case ilka case xaabsade 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 ilka case xaabsade waxaa dhammaaday tirintii codadka natiijadii ka soo baxday waxay noqotay musharax xaabsade waxa uu helay 8 cod halka musharax ilka casana uu helay 4 cod gada waxaan calool xumadeeda ma daawan kare mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa inay dabaaldega joojiyaan weli hawshii waa ay socotaa sidaa daraaddeed waxaa dowlad goboleedka durdur state hogaamin doona 5 sano ee soo socota madaxweyne macruuf xaabsade waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada ii codeeyey
iyo kuwa aanay codaynba mar labaad waxaan halkan hambalyo uga dirayaa walaalkay madaxweyne macruuf xaabsade oo hogaamin doona maamulkeenna 5 sano ee soo socota ilaahay ha kula garab galo annagu ku garab taaganahay hambalyo وهذا محينا حلا ونوع من الأشياء ورجوري واد قطع وقاري واد قطع وبوسس كرا واد قطع وهنتي يرميشة كوجي واد كسوسار وحنا هراي ملها مان وحقرب بينك دعي وريم سام كلها 3 سنة كده وينو سوري دون تاعي إن سوي بحياة الماضية ودي وحوالله ما هرينا نقول أراك فرادة السلام عليكم عليكم السلام أروى هذا يقول لك ها أنا وري ما نقولنا قولي بويني وقولتان كنا محايا قال وقت ما إذا قطع وقتنا دمائي مو واحد وين يقول لك خير أنا ترجع عليه أنا هذا الله هنا محايا لا شيء لما كنا وقعون وين مشغول صنع أنا هذا إلى شيء من لمبر بنيجي كريه يا الكاي يقول لك يسوع دافع عرفنا بعد قطع له أنا هذا الحجار وأن أنك اللي يقول لك لما هيسناه إركي هذا هذا دونتا قولوا ماذا لدي والله هنا اللي تقول هيرنو على تنقل سكوس ورسله وحنا مقاسا ها لما هذا يقول كود دولان ها أنا هذا رويد دولان يقبح قولك مش شرعي هذا ما ينادر رحبها آدم والبحر الناي يقبح دي بلقى حابس بقول يا لا تبل نو صبر سوق وحبة حابس هالدنيا وحابس قاعد قرقة إنه ما يلان سيده تا كوريون إنه ما قاعد إسكده حابس ده حكا وضعنا ورقرقة أنت هم بينك تعلي حاجين لأدنى أنت صاحب محيطة فريت هتعمله هذا حراشي فدقينا هذا حراشي السالدي يا قاستي ويلكينا waxa ha sheegin mar hore oroola ku gashay guriga dhamaan borsada yarna ka soo hadhay هذا رداف وقت أيوة سعودي أنا تختخين ka baxnaa وقت تختخنا ولا أنا قبح warina kan boortada meel un baan sii dhiganaynaa in gubad xun ba guriga ka gadmay ayna mari iska baahna inaga lahayn oo soo qaad صعد إضافة